munaasabadan oo ahayd mid xadhiga lagaga jiray dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyay jeelka dhexe ee bariga Somaliland ayaa waxa lagu qabtay degmada Garaadaga oo kamid ah degmooyinka waaweyn ee ku yaala gobolkaasi Sanaaga. munaasabadan xadhiga lagaga jiray dhismayaashaasi cusub ee lagu soo kordhiyay jeelka weyn ee degmada Garaadaga ku yaala ayaa waxa ka soo qayb galay taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta Somaliland, taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Sanaaga iyo waliba saraakiil ka socota taliska ciidanka asluubta Somaliland way hormuudka yihiin hoggaanka wax soo saarka ee ciidanka asluubta Somaliland. wafdigan uu hogaaminayay taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta Somaliland Xasan Cali Cawad ayaa waxa uu xadhiga ka jaray dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyay xabsigaasi, isla markaana waxa uu kormeer ku soo sameeyay taliyaha iyo wafdigiisan ballaaran ee ka socda taliska ciidanka asluubta Somaliland. xabsigaasi guud ahaantiiba isaga iyo saraakiishaasi wehelinaysay. kormeerkaasi kadib waxay warbixin ka dhageysteen taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Sanaaga Maxamed Degaale Siciid oo ka xog waramay baahiyaha guud ee ciidanka asluubta ee gobolka Sanaaga uu u baahan yahay iyo sidoo kale guulihii ay ku talaabsadeen muddooyinkii ugu dambeeyay oo qayb ka yahay dhismayaashan cusub ee xilligan uu xadhiga ka jirayay taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta Somaliland. intaasi kadibna taliye ku-xigeenkan ciidanka asluubta Somaliland iyo saraakiishaasi wehelinaysay waxay warbixin u soo jeediyeen cutubyo ka tirsan ciidanka asluubta ee gobolkaasi Sanaaga, gaar ahaan kuwa ku sugan saldhigaasi degmada Garaadaga, waxaana uga xog warameen ujeedada safarkooda iyo hadallo kale oo ay ku gubaabinayeen ciidankaasi asluubta habka iyo hanaanka ugu habboon ee ay horumar ku gaari karaan marka laga hadlayo dhinaca ciidanka asluubta. waxaana saraakiishaasi hadalladoodii ka mid ahaa waxaa la doonayaa dareeska haybadiisa inaad muujisaan oo sidii askarigu ahaan jiray karaamadiisa soo celisaan. suuqa markaad marayso qofku ku ogaada inaad nin qof nool oo ciidan ah tahay, qof nool oo ciidan ah. laakiin haddaad kasii reer hebel aad gaadho oo aad baan idinka idinku mahadnaqayaa. dhegta asluubta waa noolayseen idinka iyo madaxdiinaba. degmadana haddii ilaahay ka dhigo wax aanu halkay joogaan aanu ka sii siyaadina mooyaane rag wax ka dhicinayo si kale u socda ma nihin. laakiin waxaan u socnaa xogogaal u noqoshaha inaanu, waayo wuxuu ii sheegaya taliyaha qaybtu inaan weligeed madax asluubeed imanin halkan oo sare. marka waynu iska warhayn doonaa, waanu idiin iman doonaa, waynu ka wada socon doonaa xaaladeenna iyo waxqabadkeenna. waxaanu insha allahu iminka wixii ka dambeeya waxaanu idiin iman doonaa. waa laga yaabaa mar labaadka inaanu annagoo sidna wax intan ka badan, annagoo warshada sidna, annagoo dawaarayaal sidna, annagoo qaab sidan ka duwan ku socona insha allah waan idiin iman doonaa. socdaalkan dheer ee wafdigan ballaadhan ee uu hogaaminayay taliye ku-xigeenka asluubta Somaliland uu ku soo gala bixinayay muddooyinkii ugu dambeeyay gobolada bariga Somaliland ayaa waxa uu hore ugu soo maray gobolada Togdheer, Sool iyo waliba gobolka Sanaaga oo xilligan ku sugan yahay. waxaana uu taliyahani si cad u tilmaamay in ay yihiin wafdiga ugu cuslaa ee muddooyinkii ugu dambeeyay gobolkan Sanaaga soo gaara, waxaana ay tibaaxeen inay si rasmi ah ugu kurgalayaan xaaladda ay ku sugan yihiin xilligan jeelasha dalka iyo ciidamada asluubta tayadoodaba. sidoo kale waxaa barbar socday safarkan diiwaangelin faylal cusub loogu sameynayo ciidamada asluubta Somaliland, kaasi oo hadhowto la rajeynayo in lagu tixraaco askari kasta oo soo maray ciidanka asluubta Somaliland, iyadoo saldhig kasta ay booqdaan saraakiishani ay sawirro ay ka qaadayeen ciidamada asluubta ee halkaasi ku sugan.